موقفka Enzo Fernandez ee ku aadan ka tagista Chelsea oo la ogaaday ciyaaryahanka qadka dhexe ee Chelsea Enzo Fernandez ayaa la xiriirinayaa inuu u dhaqaaqo horyaalka La Liga iyadoo saaxiibadiisa xulka Argentina ay isku dayayaan inay ka kaxeeyaan London sida laga soo xigtay wariyaha caanka ah ee Eduardo Burgos. Fernandez ayaa hore u diiday dalab uga yimid Atletico Madrid. xidigo badan oo Argentina ah oo u ciyaara Atletico Madrid sida Rodrigo de Paul, Molina, Julian Alvarez, Angel Correa iyo Giuliano Simoni ayaa lagu soo waramayaa inay isku dayaan inay ku qanciyaan Fernandez inuu ku biiro kooxda Diego Simeone intii lagu jiray waajibaadka xulka qaranka, balse weli ma aysan guuleysan. Fernandez ayaa la sheegay inuu jecel yahay nolosha London, inkastoo weli fursadaha kale ee u furan uu ka gaabsaday. waxaa la rumaysan yahay in sidoo kale Real Madrid ay xiiseynayso laacibka khadka dhexe, laakiin Chelsea ma doonayso inay lumiso xidigooda. ciyaaryahanka reer Argentina ayaa haatan ku jira xilli ciyaareedkii ugu fiicnaa ee uu la qaato Chelsea tan iyo markii uu ku soo biiray. Fernandez wuxuu si buuxda uga mid yahay qorshaha kooxda, wuxuuna qandaraas kula jiraa Blues ilaa 2032 markaas oo uu gaari doono da'da 31 jir. si kastaba ha ahaatee, mustaqbalkiisa Stamford Bridge wuxuu u muuqdaa mid weli furan maadaama kooxaha waaweyn ee La Liga ay sii wadaan raadinta adeegiisa.